بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. horta ilaahay mahad leh subxaana wa tacaala. ilaahay baa keligii mahad leh, ilaahay isku keen baa mahad leh. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka soo abaabulay xafladda sharafta leh. annaguna waxaan halkan kula kulnay Faadumo dhalinyaro aad u yar u fiican. waxaan moodayay reer Netherland inay baalka qaadka aad u cunaanay, ma qaad ba cunin baanu xoog waaweyn ba ayaana soo dhaweeyay. aad iyo aad baan u mahadsan yihiin, aad iyo aad baan ugu farxaynaa dhalinyaro isu dhex jirto aanay ka muuqan qabyaaladii. waxaad iyago joogtaa qofka madaxda markuu yimaado waxaa reer ka raacay ilmaadradii moogta reerkooda, laakiin midna ay reerkeega muuheen ku ka soo raacay reer Somaliland baa aad fiicnaa. aniga waxay ugu dambeysay Netherland 2001 Leiden isku soo bixi xafladii ahayd. dhalinyaro fiican oo numaad la oran jirnaa waan xidhiidh baan lahaan jirnay. intii dambe waxaan moodayba inay meeshaba ka baxdeenoo dhaqdhaqaaqleed uma arag shaahidiintii. laakiin markii aan siyaasad saan u gelin activiska ahaa xidhiidh badan baan leeyahay reer Netherland. waa halkan ku sameynay Somali Society Europe waata halkan ku sameynay ahayd. dalkeena maanta horta waxaan idin sheegayaa anu marmo waxaan islaawanyo mala adoo iska joogaa la qaato imika la balaaco 12 sano ka bacdi ayaa mala ii fiicnado mala ilaaho way jawi cusub la ilaaho waa jira aniga nilaya bulxan professor bulxan waxaan ragii markiiba maxaa shafeeda ka raacday degdegay sidii war maxaa hareerteed qabsada. bulxan way ku taqafiyeen hadda wuxuu tagay meel la ilaaho meeshan la ilaaho koonfurteen Darfur buu shaqo tago maano taanko wuxuu yiri waxaan soo beed guriga ka soo dhisatid waxaan guriga ka soo dhisay doonto waan meesha ana meesha ku daale. in fact mujtamac aad adag baan u tagay Somaliland aad haddaan moodiyana maan galan siyaasadda dadka reer Somaliland maan galan. أنا أفريقيا بنشربان كده تيجي سومالان حمر بان كشغين شري يجوا عباني إنه يمشي ولا ندلي ولا نحكمه ولا مفيق ولا نروح وحب عماني وحب كمان يبدأ استشعال أو وناكسن أو هدي هالجمين أو إلهي سبحانه وتعالى وكسر بدادي دجال كي ضد سيدا إريتريا إثيوبيا ولسه مدوان النورية وحنو تيجي ضد قبيلتهم يقتشاب أنا وحده أنا ضعف سنين. sharciguna aanu agto waxba ka ahayn. kii diliyey ee laga qabanayaa way ka daba imanayaan soo daaba ku leeyahay war ninka aad ku diliyey adoo kiiska laga inuu isku qarxinayo moogta da aan nidaamka aan jeclaan buu arkay isdaba socodka iyo protocolka aan aqoonin qaranimo aan ku jirin. qaranimo oo yaqaana lawleska sharci daraanta iyo kala adkaan la'aanta iyo isbarbar socodka oo isbarbar socoma ayaa noqotay. waanu dadaalnay anagu in fact haddaan xusbiga nahay in badan baanu ka saarnay dhibaatooyin badan oo ay madax isla geli lahaayeen. markay doorasho dib u dhacdaba anaga saari jirnay tanaas samayn jirnay. waxaanu damcayno ka saarno magaalada Saaye shirbeeleedka oo xusbiyada aan ku abuurnay. markaan xusbiyada abuurinay aanu ka taginay guryahayaga waxaan islahayn qabaa'ilka laga baxo shirbeeleedka laga baxo dawlad nidaam leh iyo madaxweyne la soo doortay baarlamaan la soo doortay dawlad hoose la soo doortay hala sameeyo. intii waan ku guuleysano ka sameeyno laakiin wax isbedelo yimi jiro mitaan wax isbedelo yimi ma jiro. waxaad moodaa maanta iyo sanadka hore inay hay-aduhu ka xoog badnaayeen intii doorashada markaan dhicin. hadda waxaad xoog batay had iyo goor wax la damiyay qabyaaladda systemka qabiilka ah iyo institutionka modernka ayaa baritamiyay. hadda waxaad moodaa in qabiilku dusha ka fuulay systemkii modernka ah qabiilku xoogaysto wal arkisan de waxa marka laga hadlaya raadiyaha iyo idaacadaha beela isku hanjabiya had ma isku keen dambeysay beela isku hanjabiya walaha qixi doontaan ya walaha inta ka saari doonaan yani
وواح آد أفضل حن بهذا أو فوضى كسعودة واحد كلام معها أفريقيا محي وصاق الداليري أفريقيا لما واحد وصاق الداليري ما كان بارس على بلابي فيلي ستيتس وصوبحين وحويه نيشن بيلدينج oo ummad la abuur kari waayay oo ka noqdeen qoomiyada kala jaajada oo marka qoomiyada madaxnimada haysta kuwa kale ay ku tumato iyo institution building iyagana hay'adi dawladdu ku socon lahayn ayagan la dhisi waayay inagu soo ogto waxaan ka soo baxnay failed states baynu ka soo baxnay Afrika ah oo dagaal ka dhacay gobollo aan magaaladaasay hore loo develop gareyn oo dagaal sokeeyo galo lagu baabiyay ayaynu ku dhawaaqnay dawladnimo ku dhawaaqnay institutionskeenu waxay ahaayeen director amba gudoomiye gobol baa u sareeyay gudoomiye gobol gudoomiye tacliinta waqooyi galbeed iyo xaasda la oran jiray wasaaradeen u bedelo magac ma la baxno calan baynu sameeysanay constitution baa inoo sameeyay Xasan Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal constitution gal inoo sameeyay waxa quick fix buu ahaa أموهن constitution يعني اللي جسوا بارنيجي وقتي ونكسل الدسي وها مدو بهن updating constitution كانوا سميني إلا ما أنت واحد شرق قضبة أم بيجوا كتيرتو هذا يلا جمهورمو مثلا قضب ك 84 ليلة سنة كسوالة سكوا قبصة وككردية وكردية وحنو كري ويني مرة سكوا قبصتين ومرة ما سكوا قبصتين وربها كعبدية أو فرفرة محو جيدا قضب كاس يعني وين كسم مركز توا دبعتوا ما كانوا تمادوا من قبلنا كمسي هرد عنه وحلا قبلها واحد تاسي كانت متى ما أنت يندل كينو institutions كأن اسمين constitution كي هذا ما خلوا يدور ولا محا اسكول كاره house of representative كاجا وكيلا ده iyo guurtidu maxay isku mid ka dhigay erito kama jawaabi kartid maxaa 280 uga dhigatay baarlamaankiina kama jawaabi kartid guurtida wixii loo sameeyay waxaad odayaal bay ahaayeen loo sameeyay markii hore inay u noqdaan SNMT ay noqotaan mustamdeed la taliya charterkii la sameeyay 93 baa laga dhigay upper house oo kale waxaa laga saaray xil ciidda badan baa dusha laga saaro biil kasta oo locus uu maraya kan marka laga talkaayeen miisaanada muujane boqolkiiba 90 waxna ma akhriin waxna ma qoraan niman bari ku yiri bahalan saa u sii deystaan looga wixii koob madaxweynaha joogan dhawn maan idku soo daynaa misoon ka cilin lahaa hadii iga cili waan ka cilinaa waxaad baynaa waxaad in laga inta laga sameeyo daraasad leeyahay maxayna guurti ma u baahanay hadaynu u baahanay maxay qabataa yaa soo geliya sidee u soo geliya waa su'aalaha ilaa hadda u baahan in la isweydiiyo waxaan qaadanay president system baynu qaadanay president system waxa weeye in qaadanay in la review gareeyo warba halkan ma ku amayna anfacaya mise maxuu leeyahay dhibaatooyin laba chamber ma yeelan karnaa mise mid baan yeelan karnaa يعني waxay noo tala hawl badan oo si cilmiyana in loo sameeyo waxyaalaha anagu aan doonina hadaan u cudnahayna waxaan modern state hala dhiso dawlad state oo sharciyo shaqeynayo oo qabiilku shaqeynay oo waxay ku aragteen Europe ee ka soo faa'iideysateen wanaagsan values ka wanaagsan inaan dhulkeena ku dabaqnaa baan doonin waxaan naga xoog batay dhaqankii yaali meesha qabiilka waxa laga yaabaa intiina maanta wada joogta hadda Soomaaliland tagtaan magaalooyinka inay dusheelin baa laga yaabaa nin kasta reerkooda u tagaya waxyaalaha dhacay waxa ka wada dadku wuxuu lahaan jiray seedibu lahaan jiray saaxiib buu lahaan jiray nin ay wada qeyraan buu lahaan jiray imka ninku qofku saaxiib ma leh oo seedib ma leh oo sodog ma leh oo inaabtil ma leh wuxuba reerkoodu ka samaystay waa nin kasta reerkiisa way nin saaxiib leh ninka wuxuu la saaxiib ninka reerkooda way kala xirxiran dadku waxa solitration markaan wuxuu ku qaaday qaad buu ku qaaday qofka ma shaqeynayo odayga ma shaqeynayo shaqo meel kale ma jirto maskaxda ku soo dhacay subax ma ku tooso qofku waxa weeye xagad chat ka hesha ilmihiisi ka fikri maayo si uu qaado helo sidii caruud dumarkii ma dhalinyartii Yurubka drugs kama ku baahan waxa doon la sameyn jiray
بين حالة وحوينا بقات كون هلا إسلام تبو تجي قطرة إبنيسا وإسلام وحلا وإيمان إسلام قبلي عنتي كنيسي العكس عنتي ودي بسا وضيع إيمانية شاتي كيم ولي شاتي ودي بسا ولا الكيد با إيمان يسبلا شقا واتيات قطرة إبنيسي شات كودي بسا إن كيد عرض با إيمانية شات كودي بسا هوش واحد فول صار وقت دمر هي قطرة إبنيسي وحيل أو رجع صار المجرو دولة كيف كريسة dadkan wax u qabana ma jirto maan kasta qofku muu kursiga u fadhiisto ayuu ka tegayaa yani dareenkii shacbiga hadda maanta wada arkin shaqo 400 ka soo baxay jaamacad alfaleeda ilaa 5 jaamacadood ayaa soo saaray sanadkii 7 taas oo soo saaray waxa qorshe ah oo loo dhigay dadka ma jirto wax xil oo ka saaran dadka ma jiro waxa weeye in dadka la lugooyo maaha dadka in la yiraahdo dawlad baynu nahay microphone la qaato maamada la qaato salaadiintu dhalato habeenimo maalinba oo la yiraahdo dawlad baynu nahay demaha waxa ay midnu bay maqayno farax weeye war anba aan dawlad ay noqono in dadka noqono la nimaad anba dadka yaan waalin dadka yaan haday Soomaaliland ay hagaajin kar weydana oo Soomaaliya ku darsataana idinku intii hor ka foolxun ba arki doonta inta ka yaani waxa weeye maanta waa la iska dhaqaale badan yahay wala inaga tacliin badan yahay labadii aad ku faanin jirteen ba Soomaaliland waa maxay taqaan waxa ma taqaan hadda waxaad ka arkaysaa adduunka maanta cid ka hadlaysa ee analysis ka sameynaysa ee wax la weydiiyay nin qowl reer Soomaaliland kuma jiro gaab baa dhacay waxaad meel kasta aqoon gaab ay noo dhacday anaga tiraganaga wixii naga yar wax barta way yari فنانين تبارك الله وتكوي حتى فنانين بين سوستار كروي اسكدا وحراس وحوي Soomaaliland waxa maanta ugu daran waxa weeye wixii sharci la oran jiray Soomaaliland waxa maanta ugu daran waxa weeye wixii sharci la oran jiray ee saxad wax sharci oo maanta dawladda maanta dalka joogta qofna qof accountable uma aha qof kastaba wuxuu doonayo sameynaya wasiirada waa aragteen 5 wasiir ba intay ka soo baxaan xafiisadoodii ay xaflad yar oo qalin jabisay tagayaan xafishantii xafiis bay soo xidhayaan shantoo way hadlayaan hadda waa dawlad qura moogta oran maayo aniga waxaan noo hadlay anaga soo hadlay ma xajka soo dhacayo 70 ba iska tagay xajka DG ba tagaya oo wasiirkii ku xigay ba tagaya oo wasiirkii ba tagay cid xukunta ma jirto mishkada maanta inay haysato constitution-ka inta jeer la jabiyay ciida ka badan hadda maanta shirkadu waxay maqlayseen maanta hadda aragtaan waxa arkaysaan 4 MB oo leeyahay shaqada laga saaray waxay iman waayeen sessioniski min 5 sano maqlaa mid ba 7 sano maqlaa maxaa 7 sano looga saaro inta hore door haatan ka hadalno maxaa looga saaro waayo maanta ka saareen sharci soconaya Bristol baan ka hadalno maxaa waxa jira waxa taan dadka iska baasaboorada doontay ee ka tagay dalka bal lacagtooda xagaa la geeyaa mushaarkooda waa la qaadanaya dalkeena ma joogaan maanta kan maqay koola 4 baa laga saaray uu 7 sano maqan yahay yani taas waxay ku tusaysaa in meesha aanu shaqeyn haddaan sharci shaqeyna waa saala sheegay waa la isqabsanaya waxa weeye Soomaaliland maanta waxa ku socda dagaalo badan baa ku socda waxay naga socda soonaha shanaad buu naga socda oo ogtiin dadka soonaha shanaad degan wax la sameeyay waxa new police waxa weeye reer kale uu ka sameeysan yahay reerkaasi ku sameeysan yahay waxay qabaan in dadka soo jeeda Soomaaliland ay daaqis u yimaadaan meesha xaq u lahayn wadaadkii waxay ka dhacay gaashaamaagteeda maanta waxa lagu xarshin baa lagu laayay waxay doonayaan inay dadka soo bushkareeyaan waa siyaasad heeraysan oo federal system government la socon waaragtan waxa inagu sameeysan khaatimo state waxa la ilaaha awdal state baan ugu sameeysamay waxa inagu sameeysan magaranaysa shirar beeleeda shirkad dubur kii baarkeen tale daalo ceerigaabo yani waxa soo dhan waxa ku tusaysaa in institutionski uu dabcay ayna tusaysaa hadday institutionku dabcana oo midnimo la ima weynana day iskama daafici karna Soomaaliya murankeeda
ninba wuxuu tegayaa meeshuu tegayaa ninba uu baxi doona waxa loo baahay markaa in Soomaaliland isbedel ka yimaado dawladda hadda joogta ay xukunkeeda adkaysataa loo baahay inay anagu waxaan ka geysanay si Soomaaliya la hadli lahaa sidii reer Buuhoodle nabada looga dhan lahaa shalayta waxa fadhiistay odayaashii reer Buuhoodle odayaashii Beledweyne baa fadhiistay kal sheekh bay isku shireen 20 shir weyn in la sameeyo la doonayo haddii la yiraahdo dad nabadda diiday jira 3 baabuur oo tikniga laga soo dabadiro Buuhoodle laga soo diray 3 baabuurna waa laga celiyay yani dad nabadda diiday in dadku nabad qaataan ayaa jira yani dad nabadda diiday in dadku nabad qaataan ayaa jira laakiin waxa laga xoog badnaanaya in Soomaaliland iyadoo ay ka aqli badnaato oo dadkeeda in haddii cid inaga maqanta waxba noqon meene si walaalnimada aan la bilaabay SSC bilowday wada hadalada in la xoojiyo oo intaanay bilaay kale inagu dhalan la dedejiya loo baahay taas waanu kala shaqeynaa anagu haddana Soomaaliland tan wada hadalada Soomaaliya dad badan ba shay ka muujiyay oo moodiya in Soomaaliland meesheedii ka soo leexday meesheedii ka soo leexin Soomaaliland waxa weeye inagoo siman oo labo dal ah oo siman Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaynu xiriirka inoo dhaxeeya kala hadli doonaa iyo waxay oranayaan aynu midowno ana wax leen aan kala tagno daanagu ma go'aamin karno waxa go'aamiyay shacbi waxaan go'aansaday waxaan anaga nagu xidhan maaha marka waxaan jecelahay inaynu arintaasna aydu u qaadan Soomaaliland mowqifkeeda ka leexatay mowqifkeena waxa weeye inaynu dawladnimadeena adkaysano aynu doonno ixtiraafkeena raadsano aynu dawlad cadaalad ku dhisan oo casri ah inuu dhisano ayaa mowqifkeena weeye hadii ilaahay naftiina wadaayo Soomaaliland markaasi Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa u dhaxeeya gaab weyn u dhaxeeya Soomaaliya quudadeeda ayaa u ka dhaxaysa kala darajooyin kala jaajaada meel wada aragto shabaab bahaysata meel sunna as jamaa haysata meel waa maamul gaar ah leedahay meel amsun bahaysata iyada markoo in la mideeyo u baahantay oo kala shaqeyno oo waxaynu xirfad inagu naqaanay ayna weydiistaan si nabad u dhalanay si is-aamanka u sameynay si hubka u sameynay iyaga wanaagooda iyo nabadgelyadooda inaga faa'iideeyno leedahay laakiin waxyaalo aan lagu gorgortami jirin baa jirta oo in Soomaaliland ka noqoto goon istaageeda wax inaga meesha waxa fadhicu kuma xaraam ma soo wax xalaal soo dalqaadkeeda ayaa qaadan taasna anagu gacan baan dawladda ka siinina anagu waxa naga go'an in dawladdaasi aan inagu marmarsoon oo wax mucaaradada aanu ma kala hornimaadna ma jeclin inaanu wixii aan sheegna taan ugu sheegna moojaane sidii kulmay yeeli jireen ugu yeelmayno sidii kulmay yeeli jiray yeelmayno waxaan jeclahay laakiin wixii national ah dan qarana ee nooga baahato in la fulinaan jecel insha Allah taala taan nabad inta kale anagu habkan aanu keenay maka inaan kala saarno doorashada madaxweynaha musharax iyo gudoomiyaha waxa weeye muhiimadu waxa weeye in cid ay dalkan qabata way maha inuu Faysal ala wara qabta maaha waa in xusbigu uu tada qabto taasa muhiim waxa weeye fikradda aad samaysay in hirgasho ayaa ku muhiim ah maaha in aad u hirgalisid laakiin hadafku hirmaro ayaa samaysay tan waan ku faa'iidnay markuu noqday gudoomiyuhu iyo musharaxu isku qof noqday xusbi qabiil buu ekaaday gudoomiyaha reerkiisu baa lagu oranay waa xusbi reer baa la oranaya taasi way markuu ka baxday markaan kala saarnay gudoomiyaashii kala saarnay gudoomiyaha labaad waa reer hadaafteen waa reer sanadka bari baa weeye ka labaad ka saddexaad waxa weeye Cali Gurey waa reer Hargeysa ka afaraad waxa weeye reer Burco waa Burco bari agaasimaha gudoomiyaha secretary general waxa weeye waa reer Burco isna kayse marka xusbi qaran ayuu ekaaday asxaabta kale marka aragtay waxa imaka wada reer bay ku sunteen reer marka kulmiye laga reebo run marka soo baxo kale waxaan jecelahay
إن دور شذا نمك على ورولوين بنك قبنا عندي ورامي ورولوين يعني قبنا لأنه وحوي وإحنا قبنا وحوي ريجستريشن متشرو وطلبات وحوي كل مية أومين برينو عداد وحكو دونتو كل مية حبوب بو بتشروان كان أبي ولا بولا جحنو أباها ولا بولا ولا بولا بلا بولا عندنا واحد مودة إن أنا رقمين بعد مودة إن أنا رقمين سيدي الدولة مقامة سديد ضد حل كساني أصحاب تقول ما أقول حيو ريفريه وأكتشفنا كمان عندنا واحد الشرحي واحد درين وسير هدي بيدرين واحد يقدونياشي بيدرين العقبة على قاضي كصوب ما حد مقشي كصوب أقعد أنا أكو شرح يلعت كابية كوجنا شو بيه هسه بيه كوجنا شو بيه ويقولي ده هذا كوش بتم كمان أوغلان أنا بروح عن مرض ضد عقد هذا المينو مرض بولا حلو مركا waxaan jecelahay inay voice yeelataan diasporinu voice kiina mid u midaysan yahay mid midaysan oo qarannimo ah oo ka reer ku sameysmeen oo dawladda ku saartaan magalan saay culays inay la timaado xilkasnimo iyo fairness in la timaado oo doorashadaasi haday naga katibto 225 baa iska sharaxaya Hargeysa 25 qol laga qaadanaya labada boqol kale waa in la qanciyaa waxa ku qanciyana wax fair ah waxaan fairness ku qancimaaya marka in dawladda asaartan culays ma ka jecelahay waxaan kaloo isku go'aabinayaa de bahasha qabyaalada gudaha gidibada way ku xoogaysay de bahasha qabyaalada iska yaray qabyaalada meel ma wada galiyaan qabyaalada iyo qarameel wada galiyaan oo tiimku waan isdaac wadnaa lawa ma inoo firan inaynu collapse garoono inagoo la ixtiraafin iyo inay dawlad yaro saati yaman oo kala ah oo qabiil ku dhisan oo dawladdu awood leeyahay inay dhasato labadooda faa'iido ma leh marka waxa weeye inaad idu kuna maskaxdeena iyo halkan qabiil ma jirto nation by nation ma ku dhistaan doona dawladda waxa marka xisbi qurbaha xisbi diaspora waxaan jecelahay isaguna inaynu talaabada aanu qaadnay inaydu idukuna anala qaadaan baan jecelahay waa ogtihiin maanta waa qurbi sanka kan keenay dhalinyarta wax doonaysa wax barata meel ku barakaysay doonaysa odayaashu meel ku nastaan bay doonayaan islaami tuf baa ku dhacdo cadceed bay doonayaan okay marka vitamin D ba ka baxay marka xiisihii qurbuhu inaga dhamaaday xiisihii qurbuhu uu dhamaaday Europe iyo adduunka ogtiin maanta dhaqaalaheedu uu recession buu galay Spanish wuxuu shaqo tagay baashi Angola Portuguese wuxuu tagay Argentina waa Brazil buu tagay iyaga way noo soo shaqo doonaya nimankii aan shahaadini de marka wayn dal sameysana oo qaran sameysana qaran baa u baahan tahay sameysatan qaran baahan de waxaan doonayaa in qaranka nala qabataan anigu kaas 20 sano maqnaahay kuna 20 gaarsiin maanta ilaahay nala qabto de marka waa baahsantiin wixii su'aalaha waan iska jawaabinaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si fiican noo soo qabateen waa baahsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh